ummad Soomaali waa wada salaamay meel walba joogtaan daawasho wanaagsan waxaan wareysanayaa nin dhibana ah oo dhibana u ah Axmed Rashiid la yiraahdo Ali Maxamed waa arin Nairobi ka dhacday asaga ayaan ku bilaabaynaa assalaamu calaykum Ali Axmed wa calaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan rabaa inaan ka wareysto arinta shalay ii soo wacday ahayd Axmed Rashiid iyo adiga wax dhex maray ku soco noono bilow magacaaga iyo meesha degan tahay magacayga waxa la yiraahdaa Ali Maxamed Ali waxaan deganahay magaalada Columbus Ohio si fiican haye sheekadii Nairobi adiga iyo Ali waxa la jiray Axmed Rashiid iyo adiga dhex martay ummad Soomaali inay ogaadayarta codkaana wax dheere ku soco okay anigu waxaan ka tagay Mareykanka 2016 waxaan aaday magaalada Nairobi waxaan ujeedadii Nairobi u tagay waxay ahayd inaan business sameysto 2016 ka markaan tagay waxaan bilaabay transportation business 2017 ka markii la gaaray waxay bareen Axmed Rashiid iyo nin kale askari ah oo la yiraahdo Abdulkarim Mas'ud ninka askariga waxa weyn waa nin Swahili ah markii la baray Axmed Rashiid wuxuu igu yiri business buu meelahan oo Luna Park oo meel u dhow Pangani police station oo la leeyahay ninkan oo askariga kale Abdulkarim markii waxay rabaan inay igu wareejiyaan oo lacag ahaan waxay yiraahdeen ilaa $18,000 aan kugu wareejinayaa businesska waan fahmay haga dhaxgalo waan fahmay Bakani meesha ku taalo noo sharax xagee ku taalo Kenya Somali badan aan aqoon baa jirta aan waligeed arag Bakani meesha ku taalo meesha Soomaalidu degan miyaa isla yiraahdo meesha waxa weyn isli ay ku dhagantahay isla meelaha waa meesha oo isli ay ku dhagantahay waa meesha oo Soomaalida ku badan ah adigi hadda Mareykanka tagtay 2016 oo u tagtay wadiga Kenya inaad ka iibsatid meel businessna ay samaysatid maxaa Axmed iyo adiga iskiin baray business waan bilaabay 2016 ka waxaan bilaabay baabuureen baan iibsaday oo transportation business kan bilaabay laakiin taas waxay 2016 ka 2017 ka meeshaas ayaan tegi jiray oo meeshaas oo Soomaalida waa meel oo la heeso oo meel oo entertainment behed waxay bareen oo ninkan la yiraahdo Axmed Rashiid ah waa la baray Axmed Rashiid markii la baray Axmed Rashiid wuxuu yiri meeshan anaa heesto meeshan anaa xukunta meeshan anaa gacanteedii ku heesta meeshan marka waxa weeyaan waan kugu wareejinayaa meeshan hadaa ibsanaysid waxaan kugu gadayaa $18,000 asagana meesha iska la gadayo marka meeshaas wuxuu ku leeyahay share buu ku leeyahay isaga iyo ninkan Swahiliga la yiraahdo Abdulkarim marka aadiyo horay mu taqaan Axmed Rashiid markaas baratay oo lagu baray markaas baa lay baray oo horay uma aqoon jirin aniguna marka baratay ma nin booliis ama waa nin shicib ah muxuu yahay Axmed Rashiidka horta dhar oo askar mu gashan jirin waa nin oo wuxuu ahaa caadi ah waa lay baray ninkaas markii la baray markuu wuxuu yiri adigu meeshan baa rabaa inaan kugu wareejiyo meel business ah businesska waxa weeyaan waa habeen la sameynayo marka waxa weeyaan waxaan rabaa inaan kugu wareejiyo anigana asaas waan ogolaaday markii yiraahdeen waa businesskan kugu wareejinayo aniguna saas ma fiirsanin laakiin waan aqbalay wuxuu yiri waa meeshan anaa ilaaliya meeshan gacanteeda aan ku heesta marka waxa weeyaan $18,000 aan kugu wareejinaa hadaa ibsanaysid marka meesha waa laga gaday hadalka soo gaabi meesha waa laga gaday markaas meeshii waa laga gaday account anigu ku leeyahay meeshaas account oo Barclays Bank gawar Somali oo bank oo account ay lahayd Stanbic Bank waxay raadin waxaan rabnaa inaad Barclays banki waa bankiga lacagta lagu rito baan u gartay oo meesha account baan ku lahaa marka waxaan sameeyay transfer waa ku lacagtii ba 18 oo US dollars waa Kenyan shilling waxay la mid tahay 1.8 million lacagtu waan ku wareejiyay gawar Soomaali kun oo lacagta Mareykanka waxa u dhigantaa 1.3 million oo shilling 1.8 waxay la mid tahay 1.8 million Kenyan shilling lacagtu waan wareejiyay markii aan wareejiyay businesskii waxaan ku wareejiyay gawar oo Soomaali ay ku qorneed waxay ii dhiibeen account gawar Soomaali oo magaceedu la yiraahdo Faadimo magacaas
ayaan ku wareejiyey accountka lacagtaan ku wareejiyey marka faadumada waa xaaskiisa oo ku qaraaban jirtay inay tahay dharcad ayadana u shaqeeya dawladda Kenya sidaas miya gabadhaas waa xaaska Cabdulkariim Mas'uud oo xaaskiisa laakiin waxa loo isticmaalaa Axmed Rashiid iyo Cabdulkariim Mas'uud loo qof kale yihiin laba qof bay kale yihiin laba qof oo share oo meeshaas wax isla lahaayeen meeshaas business marka Mas'uud waa Kenyaati oo Soomaali ah marka wuxuu qabaa xaaskaas ay Faadumo qabaa Faadumo waa xaaskaas buu qabaa marka waxay diidayaan gabadha Faadumo Soomaali ba gabadha Faadumo waa gabar Soomaaliyeed ah Soomaali ah laakiin sari waxaan ku arkay idaacadda soo qortay Kenya markaa raadiyo warkaaga waxaan arkay gabadhaas inay magac ay wadato muslim gabar Kenyan u eg tahay sidee ku qaadatay magaca muslimiin bay yihiin ninkeedii ayadu gabadha waa muslim ah sawirkeedii wax markii aan lacagta intaan wareejinin waxay ii soo direen ID-geedii ala ii soo direen magacaas baan fiirsaday oo magac waxa ku qoran Faadumo Sabax jaamac marka waxaan ku qaatay magacaas inay magac muslim ay tahay oo magacaas muslim inay tahay markaas waxaan u qaadatay inay gabar oo Soomaali ah laakiin magac oo Soomaali ahaan bay ila ekeed Faadumo Sabax jaamac ku qoran gabadha weliga wajiid maartay weligii gabadhaas lama kulmin weligii man arkin gabadhaas oo ka soconaa gabadha maxaa marka dhacay markii meeshii laga gatay lacagtii ay ku wareejisay transfer u sameysay ee banka laga baxay kadib maxaa dhacay businesskaaga ma furotay kadib markii meeshii lagu wareejiyay Axmed Rashiid wuxuu bilaabay weerar wuxuu yiri waa inaad lacag week walba inay siisid 15,000 shilin week walba waa inay siisid 15,000 oo intee doolar dhigataa waxay la mid tahay 15,000 waxay la mid tahay $150 isbuuc inta sababta u siiyay week walba ma lacag ku wala marka meesha ka ibsata marka maya lacagtaas wuxuu ku rabaa in uu dadka Soomaalida intuu dhibin xuduudda Soomaalida la dhibo in meesha simaado la dhibo Soomaalida dhibaateen la geliyo marka wuxuu yiri waxaan rabaa in lacagtaas waa in qasab isiisid $150 oo 15,000 shilin waa in week walba isiisid waan gartay wuu ku baadi jiray marka marka inuu baadi jiray markii dambe lacagtii wuxuu yiri waa in maalin walba inay isiisid 5,000 shilin pressure week walba pressure buu saari jiray wuu adkeyn jiray pressure soo wici jiray su'aal barnaamijka inaan dhex gashado waa sii wadanaysaa adigu markii ugu horeysay Soomaali Kenyaati ma ahayd mise Soomaaliyeed ba ku dhalatay أنا وحن كل شيء مجال كسماية بناهي. لكن أمريكا وحن يمد أنا جو يربان يمد أمريكا أنا جو يربان يمد. كيني ولي يوم خرج موتك أنت الأمريكا اللي كينيا وصوب مركي عن صوب حي كينيا عن صوب حي كينيا كينيا قدرتي كينيا صومرتي كده الأمريكا. أنت سنة كينيا أنت الأمريكا اللي أنا كفامل كده أنا كصوب إحنا أنا كوحير بنجوجي كجبنا وحني مع الأمريكان. وان قرتي كوسو عشان كذي ما شاء الله يجت العقب هذا إن بريشر بدل بكسر هاي شنكون العقد تسوق قاعد جري هاي كده محد عاي. كجبنا أو لو بلد جذيه سا أو يسوي يدينا العقد كسيدر أو يري وحارة أنا يسد ومالي والبا شنكون شيلين كجب أو لو بلد جذيه ماشي سوير بوي قاعدة وعلابتي بو ماشي بو علاب أو هبينها بوير ماشي كوخاته alaabihii dhan buu qaatay meeshii albaabkii buu jibiyey alaabtii oo qiimaheeda ay tahay Kenyan shilling oo 1.3 alaabtii buu qaatay habeenkii alaabta ha uu weeraray ha meeshaas buu yimid habeennimadii buu yimid markuu soo weeraray alaabta qaadanaya ayaa joogay meeshaas way xirneed habeenkaas way xirneed basically waa u dhacay meesha meeshii buu yimid wuu jibiyey albaabkii buu jibiyey alaabtii dhan buu qaatay isaga iyo ninkii Soomaaliga askariga وهجاك كذب صبح ما حد عاي مركب واجو بريا ماشي واجي مركب بريا مركب أنا وقاعد على أنتو قاتل لوير بان قبصده لوير كمركب قبصده واد دعوة مركب دعوة سيدي واقول أحمد رشيد إنه حالة ماشي وصور عاي على قاتل وحنكوغا ماشي ستيشن كي أنتجي ستيشن كي تانغاني بوليس ستيشن كي أنتجي مركب بوليس ستيشن مركب أنتجي أو نمكي ماشي هيستو أنا كل ما مركب هذا نمكي على هذا وحقاتي أحمد رشيد isaga yimid isaga meeshii jibiyay isaga qaatay alaabta ogaadeen meesha dad dhacayeen waxay alaabtii beeraban alaabtii qaateen waxay raadaan alaabtii way xoog bay ku qaateen markii dambe waxa la yiri Axmed Rashiid baa qaatay iyo meesha waxa wuxuu leeyahay kamera waan fahmay kameradii kamera uu leeyahay meeshaas
كاميرا لا أركي وين فاهمي أنت سنة كوفر مركا كيف ستي ماشي اسمها سي تي في كاميرا بولا سي تي في مركا فيري وان او هذا انه ساعه وعدينا مكيسه سي تي في وعدينا مكيسه بريس ادوبتay oo meel ku taalo ما هذا ما هيستو وixii dhan alaabtii dhan buu iga qaatay mahal habeen buu yimid gurigeyga buu yimid سي تي في اسبوعan wax ma noo geeni kartaa mise gacanta xukumaysid هذا gacanta waxba kuma hay waan gartay marka laakiin maxaa dhacay laakiin waxaan lawyer baan qabsaday waa dacwee Pangani station ki baan dacwee macalisayaan dacwee markaan dacwee maxkamada go'aan bay gaartay waxay yiraahdeen Pangani waa alabtu inay soo daayaan haye orderkii la bixiyay go'aankii la bixiyay oo Pangani markii dambe waraaqii Pangani loo geeyay Pangani kadibna alabtu way diideen inay bixiyaan hal bil kadib nin ogaadeen alaabtii loo wareejiyo meeshii oo businesskan ku lahaa xoog baa laga qaatay maxkamadda booliska ogaadeen ku wareejisay ninka ogaadeenka sheegaysid yaa ku wareejiyay Axmed Rashiid wuxuu ku wareejiyay alaabtii oo qaatay oo xoog u qaatay maadaama uu dhacay oo wuxuu damacsana markii hore lacagteedii oo 18,000 ayuu rabay in uu dhaco waa la dhacay markuu dhacay ilaa wuxuu ku talagalay ninkii kale oo inaadeerkii ogaadeenka oo la yiraahdo Shaahiyo ayuu ku wareejiyay meeshii businesska Shaahiyo kadibna wuxuu ku wareejiyay alaabtii oo la dhacay alaabtii intuu qaatay ninkii waa ninka ogaadeenka ka dhawaajisay miya Shaahiyo ninkii ogaadeenka ilmaadeerkii odayaal maxaad u qabsan weyday alaabta laga qaadi waayay markaas ninka hanjam buu bilaabay hanjam badan buu bilaabay wuxuu dilayaa bilaabay dhibaato badan buu gaarsiiyay wuxuu ninkaneet waan dilaya kadibna waxaan bilaabay anigana looyaro badan baan qabsaday isaga dhan aan dacwee hay maxaa dhacay ugu guuleysay dacwadii ilaa dadka socota waxaan sameeyay anigoo oo ninkii ogaadeenkii markii meeshii loo wareejiyay waxaan bilaabay Ismaaciil isagaan dacwee waxaan la kulmay ninkii oo commanderka Nairobi ninkii heesto aan la kulmay aniga lawyerkeygii baa ninkii la kulmay kadibna meeshii dhan baa meeshii ninkii ogaadeenkii loo wareejiyay askartii oo Nairobi area ki meeshii weerar ku bilaabeen ninkii ogaadeenkii waa la qabtay ninkii ogaadeenkii markii la qabtay maxkamad baa la geeyay isagoo maxkamada la geeyay waa la soo daayay lacag buu bixiyay waa la soo daayay aniguna bisha markii asaga la xiray oo la qabtay oo adiga boolis kula jirsadeen alaabtii lagu wareejiyay may alaabta lama wareejin maadaama ninkii waa la xiray hal ku jira booska laga gatay markii laga gatay wax lahaansha warqad lahaansha lagu ma siinin miya may laakiin waxaan haysto waraaq oo cadeen ah in uu lacagtii aan ku wareejiyay gabadhii transferkii aan ku sameeyay wixii waan watay ilaa hadartan waan haystaa ma ii soo diri kartaa fiidiyowgan saan u raaciyo haddaad awoodid ku soo diri karaa laakiin waqti bay qaadan waa ku soo diray sug may hadda ay soo dirin marka ka baxana ay soo diraysaa san fiidiyo ugu daro hadda ay soo dirin su'aasha ugu dambayso aan rabo inaan ku weydiiyo meesha ugu dambaysa maraynaa wax dhibaato mu ku geystay oo jirdin Axmed Rashiid dhibaato weyn buu gaarsiiyay lugteedii buu hal habeen anigoo guriga imaanayo hal habeen oo 1 am meelaas Axmed Rashiid iyo laba kale niman ah baa i weerareen way jirdileen wax suxun bay sameeyeen lugteedii buu jabiyay lugteedii bidixda markin buu jabiyay anigoo gurigeyga jabtay dhaawac yar baa ka gaaray jabitaan maxaa u taqaan ma dhaawac weyn waa lugteedii dhan way jabtay lugteedii oo bidixda way jabtay suxun bay dileen suxun marka lugtii hadda ma ku jaban tahay mise si wax u dhaceen ma fahmin anagoo habeenimo oo gurigeyga tegayo isaga iyo laba kale oo niman ah way gaadeen suxun bay dileen kadibna way lugtii waxay ugu dhufteen oo bir bay wateen lugtii birtii bay ugu dhufteen anigoo wax badan baan qayliyay habeenkaas waan qayliyay niman badan baa soo baxay nimankii markay soo baxay hadda lugtu ma ku jaban tahay haddartan alxamdulillah may waa fiicnahay ma dhutidaa may haddartan may way xanuuntaa ilaa haddartan xanuunka waa dareemaa laakiin may wadankii ma lagu daaweeyey mise Maraykan anigu Nairobi joogay isla habeenkii anigoo qaylinayo dad badan soo baxay dad badan baa soo baxay kadibna markii nimankii oo Soomaalida meesha joogay qayliyeen way baxsadeen Axmed Rashiid iyo labadii man way baxsadeen
kadib lacabaar kadib waxaa la geeyey hospital oo isli ku taalo hospitalkii baa la geeyey waa la duubtay lugtii dhan baa la duubtay marka la duub waxaa x-ray baa la marsiiyey waxaa la yiri meeshii lugta way jaban tahay marka waxay u baahan tahay in la kawo lugtaada in la kawo way u baahan tahay lugtii waa la kawe waa fahmay kadib Kenya sida uga soo baxda marka Kenya intaan soo bixin Axmed Rashiid waxaan dacwo baan furtay maxkamadda sare baan geeyey Axmed Rashiid waan dacweeyey xuquuqda bini'aadanka anigu oo xuquuqdeedii maxkamadda sare federaalka dowladda Kenya geysay dowladda Kenya constitutional petitionka anigu dhaawacsan anigu la xumeeyey anigu jirdil lagu sameeyey waxyaabo badan Axmed Rashiid oo bastoolad oo madaxa isaare waxyaabo badan igu sameeyay Axmed Rashiid markii waa dacweeyay xuquuqda bini'aadanka oo xuquuqdeedii buu waxyaabo badan dhaawac badan buu gaarsiiyay waa dacweeyay kadibna markii aan dacweeyay Axmed Rashiid hanjam badan buu familkeygii u dhiibay wuxuu yiri ninkaneeto waan dilayaa jirkiisa waan markii aan dilo meydkiisa waxaan ku tuurayaa meelaha xayawaanadan ku tuurayaa kadib maxaa dhacay kadibna markuu hanjam badan markuu siiyey markii dambe waan naxay ninkan waxaa familka waxay yiraahdeen waa inaa wadanka ka baxdid si degdeg waa inaa meeshan ka baxdid baasaboorkeygii xoog buu iga haystay kadibna baasaboorkii wuxuu iga qaatay anigu hal habeen bisha 9 24 habeenkeedii waxaan qoray oo Facebook baan galay waxaan qoray ku saabsan Axmed Rashiid waxaan qoray ku saabsan ninkii ogaadeenka oo alaabtii la siiyey waxaan ku saabsan oo Luna Park baan qortay Facebook waxaan u qoray kuwan oo dowladda Kenya askarta baan u qoray waxaan irmeeshan waxyaabo badan baa lagu sameeyaa waxa dumarka Soomaalida ay lagu gada prostitution wax drug baa lagu gada habeenkii markaan qoray Facebooka Axmed Rashiid uu ogaaday inaan anigu aan ahay qofkii Facebook way dareemeen inaan anigu aan ahay habeennimadii bay imaadeen habeennimadii bay guriga iga saareen guriga albaabkii bay jebiyeen way soo galeen gurigii anigu oo way iga saareen gurigii waxaa la igay meel kale oo petrol station baa la igay waa la dilay waxyaabo badan bay igu sameeyeen habeenkaas laga qaatay baasaboorka habeenkii bay iga qaateen habeenkaas bay rabeen inay dilaan anigu aan ka wadnayga siiyaan 2 saac dhan bay meeshaas oo igu haysteen 2 saac dhan oo petrol station buu igay anigu suxun baa lay dilay haddii lagu dilayaa ka soo bixiyay habeenkaas habeenkii 2 saac intaas waxay rabeen inay dilaan kadibna waxay go'aansadeen inay geeyaan oo Pangani bay geeyeen waxyaabo beenbeen bay ii qoreen kadibna Pangani 2 week dan bay u haysteen Pangani intaas ay haysteen waxyaabo badan bay u sameeyeen way dileen way xumeeyeen familkeygii baa yimaade way iga soo saareen meeshaas kadib sidee baasaboorka hadii laga qaatay ku soo baxda Mareykanka ugu soo aaday kadibna waxaa sameeyey wadan kale ayaan tegey wadan oo Tanzania baan tegey Tanzania markii aan tegey waxaan tegey meeshii embassy-ga Tanzania aan tegey baasaboor kale aan dalbaday Tanzania Mareykan baa tagtay nacam waanti markii meeshii waa laga soo anigu dhan baa laga saaray wadankii oo xaliirina meesha inta lagu dil lahaa ka tag Axmed Rashiid meeshii kugu dil lahaa waa ina wadanka si degdeg wanaag ka baxay meeshii dhan baa laga saaray waxaa laga geeyey Tanzania baa laga geeyey dad bay wadeen dadkii markay wadeen waxaa laga geeyey wadan kale baa laga geeyey wadankii kale aan tegey Mareykan embassy-gii baan tegey waxaan ka soo qaatay baasaboor cusub baan soo qaatay anigu nabad waxaan imid Columbus Ohio baan imid anigu Columbus markaan imid alxamdulillah waxaan tegey meel oo caafimaadkii baan maray intaasaan kusoo gogobeynaynaa wixii kaloo Mareykan ka dhacay way baxaan ummadda Soomaaliyeed aad baad u mahadsan tahay علي أحمد علي محمد ميوها مقعد علي محمد aad baad u mahadsan tahay waan kula soo hadlayaa markaan dhameeyo sidaas isku ognahay ummadda Soomaaliyeed ha la socoto waxa meeshan ka dhacay waxaan wareysanayay ninkaas u jeedaan shalay soo wacay asaga ayaa iga codsaday inuu gudbiyo akhyaartan Soomaali si uu ogaato ee daawato social media marka intaas ku soo gogoynaa